بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داودياشا إذا قيمها يقدرت مدن ميل كاستون نقد داونيسان كسو دوادا برنامج كمسرحة مشرحة ومرتين نوغي هي محمد خضر ظاهر وحسب قوعد وقشرحان قبل كاميرو دي تشاه انتاينا نقود قلين سؤالها برنامجك عن كسو دويو محمد خضر ظاهر إنو نوغو ورمو سويال كيسة تاريخيت وحبرشوية سياسة كسو دو برنامجك aad iyo aad baad umahadsantahay walaal xasan marka hore calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu runtii dee sida xasan ka dhawaajiyey magacaygu waa maxamed khadar daahir waxaan ahay musharax u taagan tartanka golaha wakiilada loo geli doono waxaan ka tartamayaa gobolkan maroodi jeex waxaan ahay runtii mustaqbalka aan isleeyahay wadanku wuu sugayaa runtii dugsigayga hoose dhexe ilaa dugsiga sare waxaan ku qaatay magaaladan hargeysa halkaasaan runtii dugsiga faarax cumar aan kaga soo baxay runtii shahaadadeeda bachelor degree-ga waxaan ku dhigtay jaamacadda alpha university oo aan kaga qaatay cilmiga dhaqaalaha economicska waxaan advanced diploma runtii aan ka diyaariyey jaamacadda Beder International University oo runtii iyaduna xiriir la sii samaysay oo affiliation la samaysay jaamacad kale oo Mareykanka ku taala oo la yiraahdo Aris University waxaan masters degree-gii ku qaatay aan kaga soo baxay leeyahay jaamacadda Amoud University oo ku qaatay iyadana cilmiga educational management and administration runtii marka warbixinteeda kooban sidaas ah waatahay hawshan aad soo diyaar garowday khadar waa hawl culus oo golihii wakiilada ee Jamhuuriyadda Somaliland waxma kaaga bilaaban yihiin mabaadiida guud ee shaqada golaha wakiiladu ay qabtaan walaal xasan oo sidaad ka warqabto runtii haddaan in yar horta su'aashaada ka horreysiyo dee anigu marka hore waxaan ka mid ahaa ii sheegay muddo dheer aan ka mid ahaa macallimiinta jaamacadaha wax ka dhiga marka runtii markaad jaamacad wax ka dhigaysana kolley baaridaada ama researchkaagu aad buu u badanaya waxa weeyaan golaha wakiiladuna meelahan inta badan aanu had iyo jeer ardayda u soo diri jirnay aanu waxyaabo su'aalo fara badan oo soo weydiin jirno xeerarka ku saabsan oo la baaro aanu guri jirnay ayay ka mid marka si guud golaha wakiiladu wuxuu u taagan yahay iyo wuxuu ka shaqeeyo iyo ii sheegay waajibaadkiisa runtii waxaan isleeyahay si wanaagsan bay wax kaaga bilaaban yihiin waxaan isleeyahay waa waxaan u soo diyaar garoobay inaan wixii aan isiraahdo waad qaban karaysaa ee aad ku kordhin karayso inaanna ku daro insha Allah sideedaba hawshan golaha wakiiladu waa hawl culus oo culeyskeeda leh kharash badan baa baxaya wadil baaxta badan baa gelaya ya ka kabaya kharashka xasan walaal horta sidaad ka warqabto runtii background-kayga shaqada marka laga yimaado jaamacadaha aan ka tirsanaa runtii dee waxa weeyaan waxaan ka mid ahay iyada ganacsatada wadankana waan ka mid ahay waxa weeyaan inta badan shirkadan la yiraahdo shirkadda daabacadda ee Keller Zone dee waxa weeyaan waa mulkiilaheedaan ahay oo iyadoo dee dhowr qof oo kalena ay mulkiilayaasha ku jiraan waxa kaloo jira dee shirkado kale oo aan runtii samaynay runtii aan aniguna dee ka mid ahay dabcan oo asaaskeedina runtii aan anigu lahaa ilaa wajaalada ka shaqeeya ilaa berbera ka shaqeeya runtii marka waxaan isleeyahay horta kow dee dhaqaalaha baxaya waxaan isleeyahay waa mid marka koobaad aan isleeyahay jeebkaaga ayuu kow aad isticmaali doontaa waa marka labaad waxa weeyaan the constituency buu qof walba ka soo jeedaa asxaab buu leeyahay ehel buu leeyahay qaraab buu leeyahay runtii aragtidiisana dad badan oo la dhacsan baa jira oo waxa weeyaan markuu khudbadihiisa jeedinayo iyo markuu waxaan uu ka hadlayo runtii ay dad badan aad u daran marka runtii dadka aadka ugu badan ee maaragtay dhaqaalaha ila garab jooga waxa kamid ah dadka aan asxaabta nahay dadka businessyada wadanka kule waxa kamid ah dadka ay sheegay aragtiyaha aan soo jeedinaya runtii ay aad iyo aad u dhiirigelisay aadna u jeclaaday marka dadkaas oo dhan baa iska kaashanaya runtii inaan tartanka qarashka lagu galayo aan ku ii sheegay qarashka aan tartanka ku galin dadkaas oo dhan baa u heelan oo iska kaashanaya waatahay maxamed dastuurka jamhuuriyadda Somaliland waa laf dhabarta sharciga dalkeena inuu ku kala socdo qofka xildhibaanka golaha wakiilada noqonayana waxa waajib ah in wax ka yaqaano
mataqaanaa qodob dastuuri ah oo tilmaamaya shuruudaha qofku ku noqon karo xubin gole baarlamaan oo iyo farqadaha ay ka kooban tahay ma sheegi kartaa runtii sida aad tilmaamtay dastuurku runtii waan akhriyey oo waxa weeyaan dee qofku markuu aqoon-yahan yahay inuu soo akhriyo weeyaan waxaan is leeyahay qodobkaasi waxa weeyaan qodobadaasi waxa weeyaan waa qodobo aan is leeyahay waad buuxin kartaa waxa weeyaan qofkaasi dee da-dii baa ku xidhnaanaysa waxa weeyaan inuu dee somalilandariyay baa ku xidhnaanaysa inuu ii sheegay waxa weeyaan dee qof dhaqan wanaagsan inuu yahay baa ku xidhnaanaysa inuu ii sheegay qof waxa weeyaan dee caqliyan iyo magaranaysaa awooddii uleh inuu magaranaysaa tartami karay qodobo xoogaa ayaa jira oo runtii dastuurku uu jideeyey marka waxaan is leeyahay qodobadaasi markaad eegto ood anigana markaa qiimayso waxaan is leeyahay waad ugu mudantahay runtii waxaan is leeyahay waana waxaad buuxin karaysa baan anigu aaminsanay waanan akhriyay qodobka wada waa tahay adiga oo ku daraya xulashada lagugu soo xushay inay ku jirtay karti aqoon iyo daacadnimo maxaad kaga duwan tahay murashaxiinta hadda kula tartamaya iyo kuwa imika kursiga banaynaya ee muddada dheer golaha ka tirsanaa bal sheeg waxaad kaga duwan tahay walaal sidaa aad ka dhawaajisay runtii dee qoladan horta horey usii joogtay ii sheegayaan golaha sii fadhiday waxaan is leeyahay dee waxbay qabteen baan anigu aaminsanay haddii la doono dadku waxay yidhaahdaan waktigiibaa magaranaysaa ku dheeraaday oo arrinta waktigu markuu dheeraadana si kastood wax u qabatay dadku marka dambe way ku nacayaan sida caadiga ee adduunyada oo dhan meel walba ka jirta waana sababaha loo yidhi waktigaas ha lagu soo koobo inta aad xilka haynaysa waana waktiga energyga qofku uu hayo marka qoladaa horta anugu ma dhaliilayo waxaan leeyahay wixii ay qabteen way qabteen wixii ka dhiman waxaanu anagu iminka u taaganay inaanu insha allah ku darno waxaan is leeyahay marka niyahow marka aad eegto golaha baarlamanka dadka u tartamaya horta waxaan aaminsanahay nin kasta oo golaha baarlamanka u tartamaya inan kasta oo golaha baarlamanka u tartamaysa inay horta xaq u leeyihiin oo de waxa weeyaan shuruudihii ay soo wada buuxiyeen oo de mabay soo dhaafeenba goobaha shuruudaha lagu kala eegayo laakiin waxa sideebaad adigu ugaga duwanaan kartaa anigu waxaan is leeyahay waad anigu serious baan ku ahay arrinta runtii waxaan aaminsanahay qadiyadan golaha baarlamanka marka la tegayo inaan noqdo qof dadka uu ka tirsan yahay ee uu ka soo jeedo matalaadii dhabta ahayd la taga waxaan aaminsanahay qofka marka uu meesha tago ciday doonta ha noqotay waajibaadkiisa shaqe ee golahu leeyahay u madax banaaneeyo ka dooda in golaha waajibaadkiisii loo madax banaaneeyo waxaan aaminsanahay qof ku doodi doona in xeer kasta oo aan diinta islaamka ka soo horjeeda ama ka hor imanaya inaanan anigu noqon doono qofka u horeeya ee ka hor iman doona oo de waxaan diinta islaamka aan ka hor imanaya dee dastuurkeenuna wuu jiday oo waxa weeyaan xeer kasta oo diinta islaamka ka hor imanaya dastuurkeenu xaaraan buu ku tilmaamay waxaan jirin buu ku tilmaamay runtii oo aan dee la aqbalahayn marka waxaan is leeyahay inahaasoo dhani waa inaha kugu dhiirigelinaya inaad dadka kaga duwanaan doonto maxamed waxaan ku weydiin lahaa oo kale golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan waxay kasoo kala baxayaan murashaxiinta tartamaya xisbiyo kala duwan dabcan hadafkii xisbigaasi lahaa waad sidanaysaa oo dee xisbiga waxaa looga soo doortaa qofka inuu aragtidiisii u xambaarsanaan karaa laakiin ma noqon doonta haddiiba lagu doorto oo aad ka mid noqoto golihii wakiilada xildhibaan aragtidiisa garaadkiisa aqoontiisa iyo maskaxdiisaba lala leeyahay oo lala maamulo base waxaad noqon doontaa xildhibaan wixii danta qaranka ku jirto isagu cayimi karo maamuli kara oo ka hadli karo ka doodi karo diidi kara wax noo golan xasanow horta hadalka waxbaad ka yaro duduwaysaa waan u malaynayaa si guud markaan kuugu tilmaamo waxa weeyaan waa waxyaabaha imika ina haysta ee la leeyahay de xildhibaanadiiba xisbigan way ka wada guurayaan oo kaa kaley wada tegayaan marba dee dadkii waa iyagiibaaba dee dhinac marba dhinac loo wad wataa waxaan aaminsanahay de xisbi baan ka tirsanahay xisbiga aan ka tirsanahay dabcan de wuxuu leeyahay xeer buu leeyahay anigu markaan imanayay dhowr buug baan isku soo akhriyay buug waxa weeyaan dastuurka qaranka buug waxa weeyaan xeer hoosaadka golaha wakiilada
buug waxa weeyaan xeer nidaamyaha ii sheegay xeer nidaamyahan imika doorashooyinka buug waxa weeyaan xeerkan xisbiga intaasoo dhan markaad isla soo akhrido waxa kuu soo baxaya markaad meesha fadhiisato waxaad ku hadlaysaa sax ma tahay mise waa khalad waxaan aaminsanahay wax kasta oo wadanka u dana oo dadka u dana oo dalka u dana guud ahaan oo diinta u dana inaan xisbiga aan ka tirsanay aanu waxa uu xeerarkiisa u yaala aanay ka hor imanahayn bale ay taageerayaan baan anigu aaminsanahay markaan dib u eegay xeerarka marka waxaan isleeyahay markaad golaha tagtana dee kaasunba laakiin aragti baa jirta la oran karayo masalan laba aragtiyood hadday isqabtaan oo masalan aragtida egas iyo aragtida y baa isqaban kara labadaa aragtiyood waxaa laga yaabaa laba xisbi inay kala wataan labada xisbigii saddexaad isagu wuxuu ka dhex qabanayaa meesha xigmadda gebigeeduna waa labadan aragtiyo dee waxa weeyaan wadanka maxaa u dano unbaad arrintaasi kusoo ururaysaa wadanka maxaa dantiisu tahay halkee dantii wadanku ku jirtaa baraaraha wadanka iyo horumarka wadanka iyo kor u kaca wadanka dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa iyo shaqaabuurkiisa iyo wax walbaba halkey aragtideebay ku jirtaa aragtidaasaad markaa support garaynaysaa taageeraysaa weliba aad justify garaynaysaa ama aad qeexaysaa sababta aad ku taageertay marka runtii dee waxaa noqon doonaa anigu dadka aragtiyaha ugu faraha badan leh ee wanaagsani ee togani ay ka iman doonaan insha allah biidni illah had iyo jeer bulshada codka laga doonaya markaad u tagtaan waxaa laga yaabaa feedbacka ka soo noqonaya inuu yahay inay ku yidhahdaan muxuu noo qabanayaa iyo markaasaa nagu dambaynaysaa ma noqon doontaa murashax haddii la doorto uu golihii ka mid noqdo bulshadii iyo deegaankii soo doortay dib ugu noqdo oo xafiis ku yeesha misaalkaasaad kaga ama bixi doontaa xabsan horta afkaaga caana lagu qabay bay oran jirtay Soomaalidu marka qofku uu waxaad jeceshahay runtii uu kaasi hor sheego waxa jirta barnaamij siyaasadeed aan samaystay baa jiro oo buug ah runtii aan kula wadaagi doono buuggaasi waxa ku qoran qodob kamida wuxuu sheegayaa oo si fiican u cadeynaya inaan yeelan doono xafiis meesha codkayga u badan uu yaalo codkayga ugu badan hadduu wajaala ka soo baxo xafiiska halkaas laga furaya codkayga u badan hadduu sabab wanaag halka u dambaysa uu noqdo halkaas uu xafiiskaas noqonay hadduu noqdo 26 Juun halkaas uu noqonay hadduu noqdo Maxamed Mooge halkaas uu noqonay xafiiskaasi markaa muxuu adeegaya wuxuu adeegayaa isu soo dhawaanshaha xildhibaankii la doortay iyo dadkii doortay si aanay labadoodaasi isu waayin ama aanay u kala fogaanin waa inay isugu yimaadaan xafiiska tala badan dabeetana ku yeeshaan marka shacabkayga ay dooranaya waxaan u sheegayaa xafiiskaas waa xafiis aan doonayno inaynu ku wada hadalno ku wada shaqaysano baahiyihiina iyo waxyaabaha tabaysaan oo dhan aad noo soo dhiibtaan annaguna miiska lagu wada hadlayo aanu geyno haddii alla maxaad maanta leedahay haddaan ahay maxamed khadar daahir iga qora walaal horta dee anigu waxaan leeyahay iga qora de beritolay iman doontaaba taasiyo la odhan doonaa ninkii waxaasu yidhi waxaan leeyahay waxaa igu ogaataan wax kasta oo aan isleeyahay wadanka iyo dadka iyo dalkaba waa u dan horta taa waad igu qoraysaan ma noqon doono qof wadanka shilimaad siista ma noqon doono qof wadanka isaga laga laaluusho oo la yiraahdo sidaa ha oranine taa kala wanaagsan raac waxaad igu ogaan doontaan xeer kasta oo golaha wakiilada soo mara hadduu ka soo horjeedo diinta islaamka ama uu inuu khilaafsan yahay waxaan halkan ka ballan qaadaya inaan noqdo qof isaguna aragtidaasi aan qaadan ee ka soo horjeesta waxaan noqon doonaa qof dadka soo doortay matalaad dhaba u sameeyo bartay doonayaan u fadhiista waxay iga qori doontaan inaan xafiiska samayn doono waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo waliba saa'idana waan ku dari doonaa xasano maxaa jiray galdaloolooyin ee kuu muuqday ee kugu kalifay inaad golahan wakiilada ka mid noqoto hal ama laba qodob ma noo soo kuu sheegi kartaa walaal waxyaabaha wax badan horta way qabteen saan ka dhawaajiyay waana ku ammaanay waxyaabaha walaal runtii aadka la isla dhex maraya ee runtii iyagana mararka qaarkood aad ka arkaysa waxa kamid ah de waxa weeyaan xeer marka ay imika tusaale ahaan ay xeer la ansixinayo xeerka waxa loo eega muxuu dadka iyo dalka iyo diinta anfac u leeyahay xeerkaasi marka manfacadiisa iyo dhibaatadiisu marka la isbarbar dhigo haddii manfacadiisu badato inta la sharaxaabaa la baas gareeya
laakiin waxa u muuqataa xeerarkeenu inay u badan yihiin in xeerka isagoo duuduubun lagu ansixinayo isagoon discussion la gelin isagoon laga doodin isagoo arrintaa aan laga doodahayn baan doonaynaa inaan marka anagu aan aada uga hor nimaadno oo xeer kasta oo imanaya ama xukuumaddu ha keento ama goluhu ha sameeyo ama shacbigaba ha ka yimaadee xeerka horta in aqoonta dadka u leh loo dhiibo la yidhahdo bal waxaan analysis kusoo sameeya dabeetana iyagu ay soo sheegaan wanaagiisa iyo xumaantiisa kabacdi markaa wanaagiisu hadduu ka bato xumaantiisa xeerkaas sidaa lagu ansixiyo laakiin xeer duuduub lagu ansixiyo in la yidhahdo uun hala qaato dee walaal waad og tahay oo imikaba xeerar la ansixiyey doodii ka timi waadigii ogaa xeerka masalan kufsiga oo kale mushkiladii ka dhacday waadigii dee waxa ugu war badan dadka magaranaysaa warbaahinta runtii de xasan dee taasoo kale waxay ku timi dee dadkii aqoonta u lahaa culimmadii magaranaysaa dadkii indheergaradka dadkii lagalama tashan marka waxa weeyaan marka wax la ansixinayo waa in lagala tashadaa cidda ay khusaysay kasta taasaa markaa waxay kalifi doontaa inay markaa dadku iyagoo ku wada qanacsan wixii la ansixiyo weliba dee fulintiisuna ay fududaato laakiin anuu ma noqon doono xeerka duuduub qof ku qaata ee waxaa noqon doona qof xeerka soo akhriya oo akhrin kaga bogta haddaan akhrintaa fursad laysiin waayana dee waxaan aaminsanaya inaan sheegi doono shacbigana la wadaagi doono haddii alla maxaad bulshadii baaq ugu diraysaa adiga oo tilmaamaya ahmiyadda doorashada leedahayna ka hadlaya baaqaad jeedinaysa muxuu yahay horta shacbiga reer somaliland si guud waxaan leeyahay walaalayaal dhammaantiin doorashadu waxa weeyaan fursad aad idinku haysataan codkiinaasi waa dadkii idin beteli lahaa dadka bedelay waa waxaad ku bedeli lahaydeen marka horta waxaan shacbiga si guud meel kastay joogaanba ula dardaarmaya qof wanaagsan oo qiyam leh oo akhlaaq leh horta soo dirta oo keena qof hadhow tolo aad ka cadhootaan ama aad tidhaahdaan wuuna gabay ha keensanina maalinka fowdku dhacayana inaana idin naga seexanine aydin noqotaan dirane u feejigan oo u soo jeeda sidii uu codkiisa ugu hubsan lahaa sanduuqiisa maxamed khadarna codka inaad u hurtaan baan aada uga codsan lahaa taageerayaasheeda aadna waa u mahadsantihi وتاي كاس waxa weeyaan maxamed khadar daahir oo xisbiga u cid uga sharaxan gobolka Maroodi Jeex inta in barnaamij kan la mid ku kulmi doono waanigu xasan ismaaciil maxamed xasan shaaha dhinaca farsamada iyo isku dubaridka Cabdicasiis Mursal Cabdi Umar Jibriil oo isla dhinaca kamarada inoo joogay waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo aad u mahadsan tahay shukran deegaaniyo baarlamaan